dee nin weyn cimaamadu ka dhacda khaladkuna waa la ismoodsiin karaa igu tuura dee marka waan maaragtay cimaamadii waatana waan ku tuurayna cimaamadii waa taasaana madaxan ka saarnay barnaamijka waxaan uga hadli doonaa qisadii naxariinta badneed ee ku dhacday maxamed BK. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. kulan wacna wanaagsan saaxiibayaal, halkani waa Alfa Media Group. haddii aad channel ku cusubtiin subscribe saarta gambaleelka hilmaamina si aad u noqotaan daawadayaasha ugu horeeya ee xogaha aan baahino. runtii barnaamijka waxaan uga hadli doonaa qisadii ku dhacday maxamed BK. runtii qisadan qofkii ay ku dhacdo ee ka badbaada oo weliba noolaada haddii uusan sida maxamed BK oo kale si gubannimo leh oo u hadlin halis ayuu ku sugan yahay. waa qiso cajiib ah, waana qiso naxdin badan. soorano waxaan ogeyn maxamed BK inuu maaragtay hadal gef ah ama cunsuriyad abuuri kara inuu ku hadlay. maaragtay dadku waa kala nasiib badan yihiin. anigu waxaan aaminsanahay BK inuu qofka ugu nasiib badan intii aan arkaynay dadka maaragtay arrimaha ka hadlay Somaliland iyo Soomaaliya dadka maaragtay u soo celcelisha inta badan qofka ugu nasiibka badnaa inuu yahay aaminsanahay. sababtoo ah ma uusan helin qofku garab gasha arrintan uu sameeyay ama qaladkan uu sameeyay walaalihiis waalidiintiis waxa waaye iyo dhammaan dadkii ka soo jeeda xagga taageerayaashiisii cid walba waa ka soo horjeesay. marka dadkii oo dhan waa ka soo horjeesteen. markii uu arkay in dhammaan dadkii oo dhan ay ka soo horjeedaan oo cid ku raacsan fikirkiisa qalafsan aysan jirin ayuu garwaaqsaday in qalad ku dhacay. haddii ay dhacdo in dadka dhan ay ku garab istaagaan waa saxanta dad badan number badan aad heshay waxa waaye marar qaar qaladkaada inaad maaragtay qaladkaaga sax weliba xataa mid kasii dara inaad samaysaa marar qaar suurtagal ah. marka wax u weyna BK saacido horta waxay ahaayeen inuu maaragtay dadkii oo taageerayaashiisii dhammaan familkii dadkii oo dhan ay ka soo jeesteen oo xitaa beesha beelahaan uu ka soo jeedo wada dhaqameedkoodii ay hadleen oo ay sheegeen inaysan BK waxa uu sheegay ay beri ka yihiin. sax horta waa runtaa ninka la yiraahdo maxamed saciid BK khalad aad iyo aad u weyn buu galay maalmihii la soo dhaafay hadda ugu dambeeyay. waana sax inay way jirtaa arrintaas cunsurinimada ah, laakiin wax yar haddii aan tafaasiilkaas iyo taariikhihii aan ka baranay asaga ahaantiisa maxamed saciid BK waxaa ka mid ahay hadda ka hor markii uu ii sheeg Nairobi tagayo showgii Nairobi oo kaleento uu ku fashilmay ilaa uu maaragtay markuu ka soo laabtay uu maaragtay nacayb xad dhaaf ah u qaaday ummadda Soomaaliyeed ilaa ay ka gaartay kaligiis maahan xitaa ninkii saaxiibada ahaayeen inuu gobnatooraha gobolka Maroodijeex inuu ahaayeen malaynayo oranayay bisada ka qiimo badan hadalkii xigay ii sheeg asaga naftirkiisa afkiisa laga haayana waxaa ka mid ahay anigu uma baahni muqdisho uma baahni inta kale iga badan uu yiri haday hal $1 isiyaan xitaa igu filan waa tuu yiri. waxaan u malaynayaa ceebka ugu badan ba halkaas inuu ka keenay oo uu cuqdad saa'ida u qabay ummadda Soomaaliyeed. dhibka waxa keenan ku sheega horta markii hore waxa abuuray barnaamijka dad shakhsiyaad ay ahaayeen sax waaye laakiin wax shuu ka baajiyay dad shakhsiyaad ay ahaayeen. marka dhan ma loo maaragtay lama dhihi karo qof hebel ama tira qof hebel ahsan uu sameeyay. marka ummadaas oo dhan wax xumayna dhihi karta ma jirto. sax waaye oo kale waxa uu ka hadlay waxa uu ka dhashay macnaha waqooyi oo u dhashay waqooyi. haddii marka la yiraahdo reer waqooyi ayaa sidaan yiri reer waqooyi ayaa dhibkan sameeyay reer waqooyi haddii dusha laga saaro qof shakhsi ah wax fiican ma weliba loo naco oo asaga dartiis maaragtay dadkii lagu maaragtay cunsuriyay. sax waaye sidaas darteed markaa taariikhdu sidii u soo socotay dee siduu isu oranayay dee iska tiiri unba wuxuu dalaqiyay 36 dalaqiyay. sax waa markii hore uu helay garab uu helay markii hore qof dulmana uu ekaa Soomaaliya meesha uu soo dulmiyay. markuu halkaas sheeganay wuxuu helay number badan oo maaragtay ku taageera waxa uu wado iyo hadaladii qalafsanaay ee muqdisho maaragtay uu hadlay. laakiin hadda markii hore waa ka duwan tahay sababtoo ah hadda waxa imaaday wax la yiraahdo ii sheeg suuq iyo geeri iyo dad dhibaataysan. waxaa laga yaabaa xitaa in koonfurta Soomaaliya asagoo ku hadlay hadaladaas cunsurinimada ah asagoo ku hadlay yiri muqdisho uma baahni haddana sidaas ay tahay in ciidamada laga soo siideeyay barnaamijyadiisa in maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed la hada qabsanayso oo ku faanayaan
inkastoo asaga uusan jeclayn uu riixay reer koonfurta soomaaliya uu riixay haddana dhacdadii ugu dambeysay hadeertaan ee baraha bulshada zaa'idka u qabsatay ahayd dadkii maaragtay ii sheeg hadeertaan ku geeriyooday oo kale oo uu yiri maaragtay hadalladaas in aan hadda aan mar labaad halkan aan ka sheeg aan jeclayn sababtoo ah ummadda madaxooda ayuu ka buuxaa looma baahno waana fahamsan yihiin meesha aan ka hadlayno iyo halka aan u soconno sidaas daraaddeed haddii aan aniga halkaas su-aal baa halkaas iga muuqato su-aashaas oo ah maxamed siciid BK yaa kula taliyey ama yaa ku garab siiyey inuu maaragtay dib uga laabto arrintaas horena waan u sheegay dadka maaragtay haddii ay dhacdo inaad heshid qalad aad gasho tusaale qaladkii aad gashay haddii aad heshid dad badan ama number badan ee kugu garab gala ee ku yidhaha waa saxan tahay waana dadkaa ku kalsoon haddii ay ku dhahaan waa saxan tahay oo intaa ka dhacday libaax aad tahay waxaa dhacaysa inaad qaladkaadii maaragtay mar walbana aad iskula saxnaato weliba xataa qaladaadka waaweyn aad maaragtay samaysid laakiin BK taas arrintiis waa ka dubneed dhammaan Soomaali shanta Soomaali meel walba ay joogaan way ka dhidhiyaan arrintan qoyskiisa hoose walaalihiis waalidiintiis ayaa ka dhidhiyo fariin soo diray oo yiri maaragtay annagu gebi ahaan runtii waxaa gobonnimo ahayd ayaduna inuu asagii soo fariisto ee uu yiraahdo waa maaragtay arrintan Soomaali waan ka raali gelinayaa dadkaas Soomaaliyeed waan ka raali gelinayaa deenu weyn cimaamadu ka dhacda khaladkuna waa la ismoodsin karaa igu tuura de markii hore cimaamada waa igu tuurteene igu tuura maaragtay cimaamadii waatana waan ku tuurayna cimaamadii cimaamadii waa taasaana madaxan ka saarnay waa soo dhawaan kartaa gacmo anigu siyaasad dambena kuma jiro ballan waxaan idinku qaadayaa meel kastoo Soomaali joogto inaan idinku imaado waan idinka raali gelinayaa I love Muqdisho xalna waan siinay waa qalad iga dhacay cimaamada iga dhacday marka waxa waaye cimaamadii waa iga dhacday dib u celsho okay gobonnimo bil xaqiiqatan ka qalad inaad gasho waa shilay dhahan Soomaalida sax inaad ka garaawdana oo macnaha aad ka soo laabatin waa gobonnimo waa sax waa hadal xaqiiq ah su-aasha labaad jeclaan lahay maaragtay meeshaas ay iga muuqanaysa ayaa waxa ay tahay maadaama uu raali gelin ka bixiyey معقول متى هاي أمد الصوماليات سداس عروتي أو حتى KNM أي تريد إذا عدا KNM أي تريد برنامج كيسة وكتشوتشني إن معركة ديب لوجس أو معركة أو ديب لوجس دايو أو ديب معركة اللون عفيه مقولتها هذه هذا قف كردي وقلت كيسة كسر نقضي مقالدم والله قف والبون جميد قلد أيوه قلا قفك واحد جرى قلادات أو سجارة أو قلا وش جدي ساعة taas asiga ilaahay u taala laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay tahay waxyaabahan public ah ee dhammaan ummadda maaragtay dad badan oo jamac ah oo saddex qofood wixii ka badan qaladka aad ka gashid hadal qalafsan ee uu kula hadlay ama maaragtay hadal ku digasho u eka dadkii masaakiinta ahaa ee lagu xasuuqay ex control afgooye kuwaas wax ku jiray nooc walba ee Soomaalida laga yaabo inay ku jireen dad qaraabo dhow asaga u ah laga yaabaa Soomaalidu isku soo laabataa dad isku dhaxmilan waay qaladkii guud oo galo marka BK ka soo laabtay qofku marka hadii uu qaladkii ka soo laabto lagu naca waa may sidii shalay looga dhiidiyay ayaa hadana maanta loo taageeraa oo qaladka uu ka soo laabtay la leeyahay waad ku maacsantaa inaad qaladka soo laabto waxaan jeclaan lahay arrin dhiirigelin mudan waxa kale oo jeclaan lahay ii sheeg haddaan hadaladiisa aan dib ugu laabano oo kaleento macnaha macquul ma tahay in uu noqdo fanaan Soomaali ka dhaxeeya oo toosan oo fanaaniinteen oo kala ah aad iyo aad waa noqon karaa sababtoo ah markii horeba cid ka saarto ma jirin oo dadka dhammaan dadka asaga lama iska saaray dadka dhan waa u sinaa asaga iska saaray asaga dad gaar ah maaragtay isxijiyay laakiin wuxuu ogaaday xaqiiqada dhabta ah labada dhinac ama waqooyi aad ama koonfur aad Soomaali meel walba joogto inaysan isku yihiin wuxuu ogaaday dhacday hadda dhacday ayuu ku xaqiiqsay dadkan dad kala fog ama kala maaragtay kala fog aysan ahaynba oo wax isku dhow leeyihiin waxaan dadkan meel kala jira ma siyaasadda waa gooni ama maaragtay Puntland ama Galmudug ama Jubbaland ama Somaliland ama maaragtay maamul madax bannaan oo aan ahay Djibouti soo wadan la aqoonsiyo dunida aqoonsiyo ma Soomaali waa aqoonsan yihiin waa cid naga taaban karta waxaan kaloon jeclaan lahay bal inaan ka weydiiyo wuxuu yiri oo kale show ayaan qabanayaa laba show ugu dambeeyay ayaan ugu dhagayaa macnaha laba show ayaan qabanayaa buu yiri marka labada showna waxaan ugu deeqayaa
dadkii ku waxyeeloobay qarax control marka sideeba hadda ay noola muuqataa arrintaas haddaynu nahay reer Alpha Media Group runtii ninkan horta sida guud qalbigiisa waa u qirtay in maaragtay caamadda haddana lagu soo ceshaan rabaa labada show ugu horeysana macnaha waxa hadalkiisa ka dhignaa waxa iga soo baxa haddii ay dhacdo in wax uga soo baxaan waxa uu yiri dadkii masaakiinta ah qarax isku waxyeeloobay ayaan ku taakulaynaa allah sax waa saas ku yiraahdaa show waa xalaal iyo xalaal maahan taas waa another case laakiin sida uu hadalka uu sheegay asoo waxa ay tahay wixii iga soo baxa dadkaas ku caawina ayuu arrinta kale oo maaragtay aad iyo aad iga fajiraysa waxa ay ahayd dadku ka leedeen oo dadku ka dhamaadeen caruur roole shiir cid walba isku jirtay sax hooyooyinkii isbitaalada ku barooranayay hal mar ay afar isqabsatay habaar BK baraay ku dhacday BK san ummadii oo dhan sababtoo ah qofku moogtay wax ku dhaceen ayaa dareemi kara xanuunka BK waxyaabo ugu waaweyn ku qasbay inuu maaragtay arrintaas ka laabto san aaminsanahay waay dadkan habaartamaya masaakiinta ah dhibanayaasha ah isbitaaladii kusoo dhex habaartamaya ayuu arkay runtii inuu ka garaawo oo macnaha ka tooba ka soo laabtay arrintaasna ka raali geliyo dadka oo dhibka u geystay aad baan ugu faraxsanahay waxaan u rajeynayaa inay cafi doonaan Soomaali weyn waxaan rajeynayaa isku duubni isku imaatin isku raaleysi okay haddaynu nahay bahda Alpha Media Group anagu ahaanteena waan maaragtay imaamadii waatana waan ku tuurayna imaamadii waa taasana madaxan ka saarnay waa soo dhawaan kartaa gacmo furan ku soo dhawo maskax furan ku soo dhawo dalku waa dalkaaga markii hore baad iska saartay maanta aad isku soo celisay anagu mar walba waxaan ku nahay kuwa ku jecel welcome brother aad iyo aad waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socoshada barnaamijyadeena hadii aad channel ku cusub tahay subscribe saaro si aan lagaaga sheekeen xogaha aan baahin